السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي هذه السلامي وصاحبكين ما هو هذا كسونا قدر ناقصني مقال عصب كسر هذا برامج كينا ملا سعتا وأن ما أنت كهالي دونا شن حقيقة وكسابسن يوتيوب يوتيوب وماش أجوين أما برت أجوين إنترنت كلا جدا وده مقالة أما مقالة لجوه ذاكو حقيقة كواد يوتيوب وحا أساسي سدح شخصي أو كميد أهان جيري شغالها شركة بايبال كواسي أو لو كلمة عابي جيري ستيف جين جاد هارلي يو جاويد كريم هارلي أيا ديب كسوب بيري أساسياش يوتيوب كدي مركي أو مقلي عرنت يوتيوب وحونا إيميل وصود ديري labada kale ee asaasay YouTube-ka emailkaas oo kaga codsanayay shaqo ama inuu ku soo biiro asaasiyaasha inta kadib Harley ayaa naqshad u soo iibiyay loogada YouTube-ka waxa uu soo iibiyay naqshada loogada ilaa haatan ay isticmaalaan shirkadda YouTube-ka kadib markii uu bilaabay inuu YouTube-ka caan noqdo waxa caqabad ku noqotay website u magaca YouTube-ka kaasi oo lagu magacaabi jiray youtube.com milkiilaha shirkadaas ayaa YouTube-ka dacwad ka gudbiyay bishii November sanadii 2006 kadib markii uu batay culeyska ay la kulmayeen dadka soo booqanaya website-kiisa shirkadda Universal Tube ayaa ugu dambeyntii iska go'aansatay in ay bedelaan magacooda oo ay YouTube uga guuraan website-kan ama magacaan YouTube-ku ay ka guuraan waxayna ka dhigeen youtubeonline.com xaqiiqada labaad ma la socotaa in YouTube-ka uu ahaan jiray horaantii website shukaansi sidee ah sugsug ana ku sharaxaya degdegin in badan oo dadka kamid ah ma ogsoona in YouTube-ka ka hor inta uusan isku bedelin website laga daawado muuqaalada oo ahaan jiray website shukaansi kaasi oo ku dhisnay qaab muuqaal iyo fariimo isdhaafsi ah waxa uu website-kaasi ahay mid saameyn bulshada ku dhaxlay waxa uu u shaqeyn jiray sida website-ka hot or not oo ay isku shaqo qabanayeen ama isku mid ay u shaqeynayeen saddexda shakhsi ee asaastay YouTube-ka ayaa go'aansadeen in ay sida ay wax u socdaan wax ka bedelaan waxa ayna ku soo reebeen kaliya qaybta muuqaalka inta kadib waxa dhacday laba dhacdo oo bedeshay guud ahaan sida ay wax u socdeen ama laba dhacdo oo la dhihi karo waxa ay sabab u ahaayeen in la asaaso YouTube-kan aad maanta iga daawanaysid dhacdada koowaad ayaa ah in Jawed Cream oo kamid ahaa asaasiyaasha YouTube-ka uu awoodi waayay in uu helo muuqaal aad looga hadalhayo gudaha Mareykanka iyo caalamka intiisa kaleeto kaasi oo laga duubay fanaanada Janet Jackson ee u dhalatay dalka Mareykanka xilli ay saarneed masraxa dhacdada labaad ayaa ahayd in Harley iyo Jen oo ah labada shakhsi ee kale ee asaastay YouTube-ka ay awoodi waayeen in ay asxaabtooda la wadaagaan xaflad ay lahaayeen xilliga cashada marka loo eego ku dirista fileska ama ku dirista muuqaalada dhanka emailka oo caadidneed ama xadidneed sida ay ilaa haatanba ay tahay oo macnaha wax badan lagu madiri karo dhanka emailka labadan dhacdo ayaa saddexda asaasi ka dhigtay in ay xaqiiqsadaan baahida weyn ee loo qabo bar muuqaalada lagu wadaago waxayna go'aansadeen in ay buuxiyaan baahidan jirta xaqiiqada saddexaad ma la socotaa in YouTube-ka laga iibsaday saddexdii shakhsi ee asaastay ama dadkii YouTube-ka asaasay in laga iibsaday muddo hal sano gudihiisa ah ayuu YouTube-ka ku noqday bar caan ah oo muuqaalada lagu wadaago lagana daawado waxayna taasi soo jiidatay shirkado badan oo ay kamid tahay shirkadda Google taasi oo aragtay baahida weyn ee loo qabay bar muuqaalada lagu wadaago oo ah sida YouTube-ka oo kale waxayna Google bishii October sanadii 2006 YouTube-ka ku iibsatay lacag gaaraysa 1.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxayna lacagtaani ku wareejisay saddexda asaase oo iyaga YouTube-ka gacanta ku hayay muddo 18 bilood kaliya asaasayaasha YouTube-ka ayaa iyaga laftirkooda xiiseynayay in ay iska iibiyaan YouTube-ka sababtoo ah waxay la kulmayeen caqabado badan oo dhanka sharciyada ah waxaana kamid ahaa caqabadaha asaasayaasha ku riixaysay in ay iibiyaan YouTube-ka lacagta uga bixaysay abuukaatayaasha u doodaya ama difaacayay YouTube-ka taasi oo bishii gaartay $500,000 balse taasi shirkadda Google oo iibsatay YouTube-ka waxba uguma dhigna sababtoo ah iyada muhiimadda ugu weyn ee u iibsatay waxay tahay in ay bulshada u soo mariso xayisiimaha kadib iibsashada Google YouTube-ka waxa uu sanadba sanadka ku xiga u kobcayay si ballaaran taasi oo ka dhigtay barta labaad ee loogu wax baarista badan yahay internetka marka laga soo tago Google YouTube-ka ma ahan bartii ugu horeysay ee muuqaalo laga daawado ama lagu wadaago waxa jiray bar kaleeto oo YouTube-ka hortiis sidaan u shaqeyn jirtay waxaana arintani bilaabay Jess Norlin sanadii 1997 kadib markii uu asaasay website lagu magacaabi jiray shareyourworld.com balse markaasi waxa aad u liitay tiknoolajiyada adduunka taasi oo u sahli waysay waxyaabo badan oo ay YouTube-ka maanta u sahashay tiknoolajiyada in uu xaqiijiyo shirkadii shareyourworld.com ayaa soo idlaatay sanadii 2001 oo ku beegan kaliya 4 sano ka hor asaasitaanka YouTube-ka xaqiiqada shanaad hadda
iyo ka hor maxaa YouTube iska bedelay ka hor inta uusan YouTube ka noqon meel la soo geliyo 300 oo saacadood oo muuqaal ah daqiiqadii waxa ay ku bilaabatay kaliya hal muuqaal oo ka kooban 19 ilbiriqsi kaasi oo lagu magacaabo Me at the Zoo oo ay micnaheedu tahay aniga oo jooga beerta xayawaanaadka waxaana ka soo muuqday muuqaalkaas Jawed Karim oo kamid ahaa aasaasiyaasha YouTube-ka waxaana ka duubayay Yakov Labitsky oo ahaa saaxiibkiis waxaana muuqaalkaas lagu duubay beerta xayawaanaadka ee San Diego Jawed ayaana taagnaa xerada maroodiyaasha horteeda kadib soo gelinta muuqaalkaas 23 bisha Abriil sanadii 2005 waxa uu ilaa haatan helay wax ka badan 134 milyan oo daawasho waana muuqaalka kaliya ee la soo geliyay janaalka Jawed Karim waxa uu janaalka Jawed Karim ilaa haatan haystaa 1 milyan iyo bar oo subscribers ah Jawed oo ah shakhsiga muuqaalkaasi ka soo muuqday ilaa haatan kama aysan suulin xiisaynta YouTube-ka waxa uu sanadii 2013 u hadlay hirgelinta adeega Google Plus account si ay dadka daawadayaasha ah u awoodaan in ay muuqaalada ka falceliyaan ama commentiyo ay ka bixiyaan sidoo kale ay like iyo dislike u saaraan muuqaalada taasina waa wax muhiim ah oo qof walba u baahan yahay inuu sameeyo markii la joogo YouTube-ka intaas ayaa rabay in ay idila wadaago waxa filayaa inaad muuqaalkan ka hesheen hadii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saar hadii aad hore inoo la joogtane asxaabtaada u share garay waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan inta muuqaalka muuqaal ku xiga kulmi doono dhamaantiin waxaa idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo